تعالى وبركاته دمان نمد الصوماليات نوائد سلامي إيو انت جعل برشدة سلام دبديت ما أنت وحن ربعين عن كهلو موضوعه وحليرا وحاجرة ها possessive apostrophe s apostrophe s possessive apostrophe s taas waxaa loogu talagalay in qofka wuxuu leeyahay lagu muujiyo sida caadiga ah qofka wuxuu leeyahay waxa lagu muujiyaa waxyaabo fara badan sidii in possessive adjective la adeegsado casharkan shala ka hadalnay oo kale s for possession waa loo adeegsan karaa marka s for possession casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay s for possession ayuu ku saabsan yahay so meeshan marka eegto waxaa ku qoran possessive apostrophe s possessive apostrophe s shaqadeeda waa maxay waxaan leenahay s oo apostrophe s shows waxay muujisaa possession ayay muujisaa oo qofka lahaansho ayay tilmaami kartaa inta badanna waxaa loo isticmaalaa dadka magacyadooda ama ashyaada magacyadooda ayaa gadaal laga raacsiyaa kabacdi shayga la lahaanayay ayaa la sheegaa tusaale this is Harry kani waa Harry and this is his brother kanina waa walaalkiis marka waxaa la sameyn doonaa maanta tusaale waxaa maqan Harryga ayaa maqan brotherka oo kaliya ayaa joogo walaalka ayaa joogo so qofka wuxuu ku weydiin karaa ninkan ayaa waaye so inaad dhihi kartaa laga rabaa kan waa Harry walaalkiis this is Harry's brother kani waa Harry walaalkiis this is Harry's brother marka maxaa la sameeyay apostrophe s lagu daray apostrophe s ayaa lagu daray halkaas Harry's brother waayahay mar labaad aan ku laabano tusaalaha kale this is Arika tani waa Arika this is Arika and this is her computer kan waa computerkeeda so computerka kaliya ayaa yaala meesha so waxaan u baahanahay inaan weydiiyo oo kale inaan ogaado yaa iskale computerkan waxaan leeyahay marka computerkan waxaa iskale Arika ayaa iskale this is Arika's computer kani waa computerkii Arika marka s for possession labadaba lahaanshaha iyo tusaaleena oo waxay la mid tahay the computer of Arika waxay la mid tahay the computer of Arika ay 2 numberka labaad imaaw kan labaad waxaan leenahay markasta apostrophe s ma ahan mid lahaansho tusaaleysay ugu okay apostrophe s also short form of is waa short form erga is waaye tusaale keen he is a bank manager okay tusaale he is a bank manager apostrophe s ayaa ku jirto apostrophe s taas is ay u taagan tahay she is my daughter iyada waa gabadhayda she is my daughter iyada waa gabadhayda marka apostrophe s halkan ka muuqato waxaan dhahaynaa waa waxay la mid tahay he is asiga waxa waaye he is asiga waxa waaye she is iyada waxa waaye she's iyada waxa waaye marka apostrophe s labadaas mar ayaa la arkaa inta badan waayahay maxaa noo xigo exercise yar ayuu leeyahay casharkeena aan isku dayna balna exercise ka shaqeyno haddii aad tahay qof jecel barashada luqadda Englishka fadlan channelka subscribe dheh like-na videoga dheh asxaabtaada u gudbi waxaa laga yaabaa inuu anfaco saaxiibadaada wax badan Facebook ina leedahay laga yaabaa iyo Messenger iyo WhatsApp groups ina ka mid tahay waa ka codsanaynaa inaad asxaabtaada la wadaagto okay waxaan rabnaa marka inaan ka sheekeyno numberka saddexaad ismiya oo possession miya apostrophe s ayaa meeshan lagu soo diyaariyay ismiya mas possession waaye number 1 Harry's married mase Sarah waaye Sarah's married Sarah plus apostrophe s plus erga married Sarah waxa waaye qof guursaday Sarah's married Sarah way guursatay is ayay u taagan tahay Tony and George are Amy's sons Tony iyo George waa ciyaalkii Amy
marka apostrophe s taasi lahaansho ayay tusaaleynaysaa waa possession ayaan leenahay waa possession ayaan leenahay. Number 3, George's sister. George walaashiis George's Grace's sisters gabdhaha Grace la dhashay are married way guursadeen. Marka apostrophe s tan anface halkan ayay ku jirtaa oo casharkeenu yahay waana lahaansho. Way Grace's sisters auntie married ma aysan guursanin saas ayaa laga wadaa dabcan. Waayahay Grace's sisters gabdhaha Grace la dhashay auntie married ma aysan guursanin. Okay, thank you very much. طبعا waa kana shayga laga rabay. Okay, Sarah's married is waaye. Okay, Tony and George are Amy's sons waa possession. Grace's sisters aren't married waa possession. Graceska apostrophe s halkaas ayay kaga jirtaa. Marka walaal mar labaad videoga xilligaas soo gaartay waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe dhahdo asxaabtaada u gudbiso. waa video yar oo 10 grammar ah positive apostrophe s ku saabsan waxaan rajeynayaa inuu waxtar leeyahay marka asxaabtaada u gudbi haddaan ugu cusub tahana halkaan la soo gaartana fadlan subscribe. Thank you very much.